السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو أصحاب تقاليق ومركا لي مقالك الله عسوياني ولا شي سودا سلو على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كيس كان توليرو كتالا بريق دالكاسي ليبيا أيو كدعي سيديتميدي تدباتميدي دمادكيدي باش كد soo bilaabanaysa سيديتميدي دمادكيدina way soo dhamaanaysa. Tuulada yarta waxay u dhaweyd waxoogaa bay u jirtay laakiin waxay ka tirsanayd ama ay u yara dhaweyd Banqaasi magaalada la raahdo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Liibiya. tuulada yarta waxa ku noolaan jiray aaba la oran jiray Abu Cabdicasiis. aabahaas wuxuu dhalay 4 gabdhood iyo hal wiil. wiilka ugu yaraa wiilkaana la yiraahdaa Cabdisalaam Abu Cabdisalaam baa la dhihi jiray. wiilka ugu yar marka qoyska waxa ka waaweyn gabdho kadibna odayga saas uu magaciisa ku noqday marka wiilkiisa Cabdisalaam u dhashay Abu Cabdisalaam. wiilkan la yiraahdaa Cabdisalaam marka aabihii wuxuu isku day jiray mar walba inuu baro aabahani hadduu ama weynaado xanuunsado ama dhinto sidoo isagu reerkan xoolahooda iyo hantidooda iyo uu ilaalin lahaa. aabbo wuxuu ahaa aabbo dukaamo iyo wax tuulada kule sidoo kale beeran uu lahaa beerahan iyo dadka. wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan. cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariisi korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran. inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday. haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. ka shaqaynay iyo dalagan markuu soo go'o sida loo iibinay waxyaalo fara badan baa wiilka la bari jiray. iskuulna uu dhigan jiray arday buu ahaa. tuulada marka iskuul baa ku yaalay ilaa heer dugsi sare ah. wiilkan marka waxa la rabaa markuu iskuulkan dhameeyo inuu ku wareego hawshan aabihii uu hayo oo de isagoo wali iskuulka dhameeynin buu aabihii markasta u kaxayn jiray dukaamada mar wuxuu u kaxeeyaa beeraha wax walba waa la sii bari jiray. wiilka isagoo dugsigiisa sare dhigta dhowr iyo 10 jir ah oo wali dugsigiisa sare dhamaynin buu aabihii maalin wuxuu yiri marka waxaynu aadayaa bur caasimada iskuulka fasaxay wax lagaga jiro wuxuu Cabdisalaam waan sii kaxaysanayaa ha raaco caasimada ha raaco. aabuhu markuu de dhowr bilood jooga ma sanadkiiba hal mar caasimada uu aadi jiray laakiin qofna muu kaxayn jirin. ninkii Cabdisalaam haba la kaxeeyay caasimadii baa la geeyay waa ka yaabay wiilka yar tuuladan uu ku dhashay ee dadka beeraleyda ay degan yihiin weligii alihii joogay beeraha iyo iskuulkiisa iyo gurigooda iyo buu arki jiray deeyo tuuladii agagaarkeedii hareeraheeda iyo meel hadii la aadayo la dalxiisayna meelaha doorasho magaalada ka baxeediyo beeraha dhexdoodii meelaha bay ku soo dalxiisi jireen. wiilka caasimadii markii la geeyay waa ka yaabay waa caasimadii ka helay meel dad fara badan joogaan oo guryo badan ku yaalaan oo baabuurta saas u daamareen nolol kale caalam kale oo galay cunug yar caalamkii tuuladii uu joogay iyo miyigii ma ahay waa ka caalam kale galay deelmaha yar sidoo wax u fiirfiirinayo oo u yaabanayo u wareersanaa ba isagii aabihii soo laabtay muddo yar oo 3 bari oo caasimada joogay. wiilka markuu soo laabtay caasimadii uu ka fikiraa iyo gabdhihii joogay gabdhaha tuulada waa gabdho iska masaakiin oo jidka xataa haduu nin ku arko la hadlo sida hoos u fiirinayo qofka kor u fiirinayno xishoonayo madaxa maro u saaran tahay haday xataa timahoodu qaawihiin inay xijaabanayeen haday xijaabantahay gabdho xishoonayo aamusano gabdho iska qosqoslayo buugaag wato jaamacada ka yimid oo jidka taagtaagano timahoodu qaawan yihiin oo ninkii la hadla la qoslayo la sheekaysanayo waa isagu sidoo ra'yigiisa aaminsan yahay. wuxuu yiri marka meeshan aba khatar maana caalamka waan ka dambeynaa tuuladan xuna miigi maxay ahayd caasimadan mar hore inaan arkay ahayd wiilkii caasimadan uu ka fikiraa uu ka helay wuxuu go'aansaday marka uu mar walba ku fikiri jiray sidoo caasimada ku iman lahaa. wuxuu yiri marka waxa iigu dhow fikradda ah iskuulka markaan dhameeyo beerahan la iisi tababaray iyo dukaamadan iyo waxaan tuulada yaala mar rabay anigu inaan idhaahdo jaamacad baan u baahanahay jaamacadan caasimada ka dhiganaya jaamacada markaan dhameesho qaan raadsanaya gabadha caasimada ku dhalatay oo gabdhaha caasimadahan guursanaya halkaas waliga Allah joogaya mar raba tuulada inaan ku soo laabto. tuuladan marka hadda si uu kaga tago uma furna waa inuu iska sugo intuu iskuulka dhameeyo iskuulkii buu dhameeyay. aabihii hooyadii buu u yimid wuxuu anigu jaamacad baan rabaa wala la yaab waxa lagu maxaa jaamacad ku falaysaa hantidii lagu tababaray aaway hantida aabahaaba wax kala maamulo u baahan jaamacad maxaa lagu falaa jaamacad marka la dhameeyo shaqo u baan raadsadaa shaqada maxaa lagu falaa marka lacag baa la rabaa soo maaha de lacagtii waa tan bay kaale waxa la shaqadan ku haynaa bila jaamacada shaqadaadan qabso wuxuu yiri doonayo shaqadan ma rabo dukaamadan iyo beerahan iyo waxaan iyo miyigan iyo baadiyahan uma baahani anu caasimada raba way la yaabeen abihoodii waa lagu qoslay waxa ilmiyeed waalantahay caasimad maxay tuuladadan aad ku dhalatay baad joogaysaa gabadh tuulada had guursanaysaa jaamacadii waxaas iska ilow kaale hantida aabaha la wareeg wiilkii wuxuu yiri may anu jaamacad baan rabaa. waxa lagu yiri marka aad jaamacad rabto oo ka dhabtahay oo ku adkaysanaysid inaad jaamacad rabtid Banqaasi baa marka tuuladooda u dhow Banqaasi jaamacadaha ku yaala aad subaxii kala basraac ama gaari baa lagu soo iibin gaariga ka xayso jaamacada tag soo dhigo galabkiina soo rawax oo tuuladan ku soo noqo may waxay yiraahdaan caasimada raba caasimada waxa la qofna uma degana caasimada waliga Allah iimaanaan tagin qof degan xataa aan qaraabo lanahay xataa ma degana dadka tuulooyinka degan dadka caasimada degan dad walwaalan bay ka aaminsan yihiin ba
dadka caasimaduna dadka tuulooyinka degan dad reer miyi adduunka ka dambeeyo reer baadiya ay ka aaminsan yihiin kuwa tuulada degana dadka caasimada way bayasayaanba dad waalwaalan oo reer galbeedka la haysta oo fasaxaaday oo fisq ka shaqeeyo nooc kale abay ka aaminsan yihiin waa yacni kaafiya kala dheeri waxaa lagu yidhi waxaad iska ilowday caasimada markaad tagto waad fasahaadaysaa imikaad waalanaysaa markaasaad gabdhaha caasimada baranaysaa wuxuu yidhi gabdhaha caasimadaaba rabaaba gabdho qurqurux badan oo waxaan soo arkay dee qofku markuu la hadlay saas iyagoo usoo eegaya la hadlaya oo waxaan miyiga joogay marka la hadlay hoos fiirinaya aan ahayn oo wax barto jaamacada dhigto khatar oo gabdho baabuuro wataan xataa soo arkay waxay tiri hooyadii marka dee waan khalaas waan kala dhimanaynaa hadda haddaan kaa maqla gabadh caasimad joogta ismaba sheeganaynaba wiilkeygii inaad tahay waan iloobaynaa حتى بن قاسم آليس جامعة المدينة يصير برا قبلها جامعة دكتور بتاع سماعة كوفي كريسة قبل بالو جورين هل كانت جوجة سهل تدا أباها المسؤول كان قني سوي الكيرة وديده waxaan tii mas'uul kan qonay wax fiir ma jiro waxa la gabadh baa lagu guurin adeerada habaryaraha ee dooyinka gabdhaha ay dhaleen gabadh qurux badan ka soo dooro gabadh baa lagu guurin waxa la isir bal u guuray yani xaaskiisa dartii marka inuu u joogo tuulada wuxuu yiri ma rabaan gabdhaha reer miyiga baadiyaha jooga ma doonayo gabdhaha caasimada jaamacadaha dhigtay baawrada wata khatartaan raba abihi hooyadii wiilka way la hadleen walaalihii way la hadleen qaraabadiisii oo dhan way la hadleen waxa lagu yiri iska dhaaf caasimadan iyo waxaad ka sheekeynaysid reerkiina waad kala dhimanaysaan hadda caasimada aadidii tuulada joog hantida aabaha mas'uulka noqonaa wiilkii rawoodiday wuxuu inaan caasimada aada ay jirta waxay ku yiraahdeen marka aabihii hooyadii hadda caasimada aado anagu tacsidaadan dhigaynaa hadda sida ruux naga dhintay oo kale baad noqonay noomana soo noqonaysid lacagna kuma soo dirayno caasimada markaad aado maxaad cuni marka guri aad degta xageed ka keeni hadda jaamacad gasho maxaad biil ka dhigan annaga nama soo wixi kartid lacag kuma soo dirayno kuma masruufayno nooma imaan kartid haddaan dhibana xataa xoolaha iga dhaxal kuma yeelanaysid yacni shaqo iyo shuqul iskuma lihin haddaad tegsidoodna diidid oo caasimada aadid sida qof dhintay oo kalan dee kaaga samrayna iga samro idinka idintaan la ama iga samra ama igu samra waa hawl idinka idintaan la xidhan caasimadan raba inaan caasimada aadaaba i jirta wiilkeera dadkii tuulada oo dhan iyo qaraabadiisa oo dhan way isugu yimaadeen waa la kari waayna caasimadan aadayaaba ku adkaystay wuu baxay caasimada aad baa la dhahay hooyadii abi waxay dhahay waxa laalay guriga ka yaali maryahaagii waxaad xaafada ku leedahay oo dhan qaado dibna ha noogu soo noqonin maba idin soo noqonayo marba anigu tuulada wuu tagay wiilkii yaraa gabdhihii la dhashay way ka walwalsan yihiin walaalkay waarna waan u baahanahay noo soo noqo hooyadii abi laakiin way dhartay waxay dhahay wiilkaas hadduu soo noqdo kawbaan ka siinanayo noo soo noqonin soo namuu diidina mun in caasimad baan u socdaa caasimada ha ku dhaxlumo hooyadii aba caasimada ha ka raadsada dib noogu soo noqonin wuu tagay wiilkii yaraa caasimada inuu tagaa ka go'an ninkan aabihii hooyadii iyo waxaan uma cadda isaga caasimadii markuu tagay wuxuu bilaabay wuxuu raadsaday marka shaqo intuuna jaamacad iyo waxba tegin ilaa masruuf uu u baahan yahay wuxuu bas ku raaca ma haysto wala soo buriyay markuu caasimadan tagay ayuu masruuf nacidi kuma siinaysaa leeyahay wax biil oo ku soo dirayna ma jiro wiilkii yarka marka shaqo raadsaday meel buu shaqo ka soo helay galinka dambe iyo habeenkii fiidka hore laga shaqeynayo mar meelaha cafeteriyaashka ka shaqeeya mar maqaayad waiter ka noqdo mar meel buu ka shaqeyn jiray qol yar buu kireystay jaamacad buu galay isaga isbiila marka galina jaamacad buu dhigtaa galinka dambana wuu shaqeeyaa markii hore markuu caasimada ku fikiray wuxuu islaabahay hooyada lacag ku soo diray reerkoodu reer lacag la weeyaan intaad guri kireysatid oo gaari iibsatid bad galinka hore jaamacada dhigani galinka dambana meelahaas sidaas soo wareego gabdhaha jidadka taagan bad la sheekaysanad afka la galiyo saleemooyinka meelaha shareemooyinkaad aadi waxaas uu ku fikiray waa dalxiis iyo meelaha wareegiyo waxaas uu ka sheekeynay niyadii maanka ku hayay mar badaad aadi oo mar meelahaas saa u soo wareegi laakiin hadda sheekadiisi waxay noqotay shaqo jaamacad habeenkii isagoo tacbaan qolkiisa yar markuu yimaadana inuu wax akhristo wuxuu yiri marka si kasta haday noloshu igu adkaato si kasta u daala xataa tuulada inaan ku noqdo lagama yaabana tuulada xunta inaan ku noqdo aabihii hooyadiina wayba naceenba waxay dhahdeen sida ruux naga dhintay oo kala tahay nagu soo noqonin wiilkii waxay isbarteen gabadh la yiraahdo Fawsiya oo isku jaamacad ahaayeen isagii Fawsiya markay isbarteen Fawsiya waxay tiri aabahay uu dhintay aniga hooyadii iyo walaalkii baa guri ku nool walaalkii ana ka weyn oo waxay tiri marka aniga iyo gabadhan aabaheed markuu dhimanay yani hanti fiican buu uga dhintay iyada walaalkeed hantida waa loo qaybiyay iyadu marka dukaamo iyo guri iyo waxbay leedahay iyo wixii lacag ahaan markaas ay qof kasta loo siiyeyna ciyaalka mid walba akoonkiisa intuu akoon samaystay akoonkiisa loogu shubay lacagay waxba jaamacada la timaada marka way iska ladan tahay oo lacag baa ka muuqata gabadhan markasta markay idii wiilkan meel isu raacaan way isbarteen way sheekaysteen muddo markay isqaaneen waa la isjeclaado waa la isukaasaday xiriirkoodii markii hore xiriir iska arday iyo saaxiibtinimo markii dambe jacayl buu isu bedelay waxay ku dhihi jirtay marka meel isu raacaan marka lacagta anigu aan bixiyo mar walba wuxuu dhihi jirmay waxaas waa ceeb anaa nin raga anu aan bixiyo marka waxay dhihi jirtaa waxaa tahay arday yaro miskiin tuulo ka yimid oo shaqeeyo waxba haysanin anigu lacag baa akoon iigu jirtaa bahay markuu dhintay aniga walaalkay lacag fiican buu nooga tagay hooyada iyo walaalkay wiilka u xudi way qaybsadeen ruux walba lacagtiisa gaar buu u maamushaa anigu aan bixin mararka qaar xataa waxay dhihi jirtaa xaaladu kugu adkaadaan ama qolka kiridiisa lagu weesh wax sax ka noqdo saaxiibada baan ahay aan ku caawiyo isna uu diidi jiray wuxuu dhihi jiray may waan waa shaqaystaa waqti aan ku wareegay iyo waqti aan ku dalxiisiyo baanan haynin shaqadayda iyo jaamacadayda marka la fiiriyo
xaaladdu way isku dul saarantay qolkayga kiradiisa iyo masruufkayga lacagta baska lagu raacay waxaas oo dhan waan haystaa gabadhan marka la yiraahdo Fawziya iyada wiilkan ka hor dhamaysay jaamacadda iyadoo jaamacadda sii dhamaynaysa isbarteen isaga way ka hor dhamaysay laakiin wali iyadoo gabadhan aan jaamacad dhiganin wiilkan uu arday yahay buu xiriirkoodu sii socday